agaasimaha wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubbaland mudane Maxamed Xuseen Maxamed oo howlo shaqo u joogo caasimadda dowladda Puntland ee Garowe ayaa kulan la qaatay dhigiisa wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland mudane Maxamed Cabdirasaaq Nuur. labada mas'uul ayaa iska wareystay xaaladda labada wasaaradood waxayna intaa kadib ka wada hadleen qodobo ay ka mid ahaayeen iskaashiga labada wasaaradood iyagoona mid u booqday waaxyaha kala duwan ee dhismaha wasaaraddu ka kooban tahay iyo sidoo kale xafiiska wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland Marwe Sahrakiin Maxamed Xirsi oo dhankeeda si qalbi furan u soo dhaweysay. agaasimaha wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland mudane Maxamed Cabdirasaaq Nuur ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in wafdigan ka socdo wasaaradda haweenka Jubbaland ay qaabilaan isla markaana isweedaarsadaan howlaha shaqo ee kala dhaxeeya taas oo buu yiri sababi karta in si dhow ay isula shaqeeyaan. ru'aantii farxad weyn bay noo tahay in wafdi inta leeg oo miisaan leh oo agaasimihii wasaaradda uu hogaaminayo uu nagu soo booqdo wasaaradda oo wax ku dayasho mudan markii ay labada wasaaradood ay isdhaafsadaan macluumaadka iyo wixii hadba baahiyaha wasaaradda iyo khibradda iyo aqoonta waxay kabaysaa in halka uu yimaado wada shaqayn dhow kullama ay wada shaqayn dhow ay timaadana waxay ujeedkii loo sameeyay wasaaradaha in laga miro dhalin. Maxamed Xuseen Maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka mahad celiyay soo dhaweynta diiran ee isaga iyo xubnaha kale loo sameeyay waxa uuna tilmaamay in maalmo ay sii joogi doonaan Garowe si kulamo iyo isdhaxgal aqoon isweedaarsi ah ay ula sameeyaan waaxyaha kala duwan ee wasaaradda horumarinta haweenka Puntland. aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka oo si khaas ah noo qaabilay warbixin iyo sawir guudna naga siiyay wasaaradda iyo habka ay u shaqeyso. waxaan sii joogi doonaa ilaa muddo ku dhawaad usbuuc 5 maalmood. maalmahana waxaan filayaa inaan hadana mid aan ula fariisano waaxyaha wasaaradda ay ka kooban tahay si aan u soo wadaarsano xogta iyo waxyaabihii ay nooga horeeyeen maadaama Puntland ay tahay dawlad jirtay 20 sano xogtaas aan ka qaadana ayagana aan dhaafsano sidoo kale wixii aan khibrad anaga aan hayna. marka maanta waxay iska ahayd isbarasho isdhaxgal iyo in aan ogaano waxyaha wasaaraddu ay ka kooban tahay iyo habka ay u shaqeyso iyo bay'ad noocay ku shaqeysaa waana bay'ad aad u qiimo badan oo soo jiidasho leh. waxyaabaha ay cajab gelina waxa kamid ah in ay tahay meel fooqeeda koowaad ay soo kori karaan dadka la nool naafada waana ku bogaadinayaa in ay dhahay meel afka qalad wax lagu dhahaa disability friendly institution. marka waxaan la kulanay wasiir ku-xigeenkii agaasimihii guud ee qaybihii kala duwan wasiirka uu yar mashquul ahaa soo dhaweyn iyo kalgacayl walaaltinimo oo muglan waan ka helnay. aad iyo aad ugu mahad celinaynaa. asbuucan in joogno waxaan filayaa inaan wax badan aan kordhisin doono kadibna ay noqon doonaan iskaashi wanaagsan oo walaaltinimo iyo wada shaqeyn joogto ah inaan yeelan doono. wasaaradaha kale oo dhigeen insha Allah dawlad goboleedyada dawladda federaalka ayagana waxaan filayaa in ay noqon doonto xilliye aan u horseedo doono in wax la kala bedesho waayo Soomaaliya dal burburi waaye ku dhawaad 30 sano wax ku dhow ay calaad sokaya hareysay. marka in wax la kala qaato oo hebel adi maxaa taysaa lisdana waxay kamid tahay kabashadii insha Allah waxaan rajaynaynaa in isku imaatinkeena iyo wax kala bedelashada ay noqoto guul oo soo hooyatay wasaaradaha aan mas'uulka ka nahay iyo shacabka aan shaqeynayna iyo guud ahaan Soomaaliya. si kastaba wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubbaland iyo tan Puntland oo horeyna wada shaqeyn dhow u lahaa ayaa la filayaa inuu xiriirkooda sii wanaagsanaado. Cabdullaahi Xuseen Kilas
telefishinka caalamiga Ariel caasimadda Puntland ee Garowe.